بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحاضرة قيبتي صدحات برامج كي تحاناها دقالة إسلام أينو كجاه اللي جرني كبحي جري مسجد كحاج علي قروة تيفي هانا كبحا تيفي كلسن هبين كستو خميسة waxaan soo bilownay muraabaxadii baan soo bilownay oo labadii xalaqo hore ay ku saabsanaayeen caawana insha Allah waa dhameystirka xalaqadii hore dhameystirkeedii oo ku saabsan marka muraabaxada la fulinayo talaabooyinka la maro iyo qaabka loo fuliyo ayaan caawa insha Allah rabbiino doctor ka hadli doona runtii waxa moodaa inay tahay jaamacad oo qofkii ku xiran wax badan uu ka faa'iideeyo maadaama ay muraabaxadu tahay macaamilka ama heshiisyada ugu badan ee bangiyada islaamiga ee Soomaaliya ka jira ay fuliyaan runtii baahi badan baan u qabnaa inaan wax badan ka ogaano mawduucaas iyo muraabaxadu waxyaalaha iyo heerarkay marto iyo waxyaalaha maaragtay ku imaan kara oo dhaawici kara doctorku insha Allah marka hore muxaadarada ayuu galayaa barnaamijka qaybtiisa dambana wuxuu noqon doonaa su'aalaha insha Allah waxaad ku soo dirsan kartaan telefoonka 7 eber 6 7 eber 6 3 7 eber 6 3 san doctorku uu gudbiyay hadii rabbi idmo doctor Ahmed Jaamac Ismaaciil Mira waa la taliyaha dhanka shariicada ee bangiga Amal waxaan leenahay Allah subhanahu wa ta'ala ka balmariyo waana doctorku waxaan leeyahay ku soo dhawo faliya tafadal mashkuuran الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الليل إن شاء الله تعالى وحين رميسترنا أحكامتي كصاب سنين مرابحة وعن قصة هذا اللي حلقة ذي هراء muraabaxada iyo taariifkeeda iyo xukunkeeda iyo maraaxisha ay marto iyo sidaas leeg shuruudeeda waxaan kala soo hadalnay akhtaada dhacda ee dadka ku mucaamila muraabaxada ka dhacda caawan insha Allah ta'ala waxaanu ka hadlaynaa xaaladaha ay marto ama talaabooyinka ay marto muraabaxadu iyo ahkaam la xiriirda marka la tadbiiqinayo ama la dhaqan gelinayo heshiiska noocan oo kala talaabo kasta ahkaam gaar ku ah insha Allah ta'ala ka hadlaynaa ahkaamtaasna waa ahkaam ay tilmaameen culimada waaweyn islaamku hay'adda dabagalka iyo qiimeynta hay'adaha bangiyada iyo dhaqaale ee islaamiga oo Bahrain ku taala sidaas la eeg majaamic al-fiqhiyya al-islaamiyya ama kulamada fuqahada islaamku isugu yimaadaan ayaa talaabooyinkan ahkaamaha aynu sheegi doono markaas ay ka soo baxeen marka koowaad waxaynu tilmaamaynaa si guud talaabooyinka la qaado horena u tilmaanay mid waxa weeye muwaacadada ama ballanqaadka dhaxmara qofka macmiilka iyo bangiga ee ku aadan in badeecad ama gaari ha noqoto ama gudi ha noqoto ama raashin ha noqoto iyo wixii la mid ah uu macmiilku doonayo in bangigu soo iibsado uu ka iibiyo macmiilkuna uu ballan qaadayo in uu ka iibsan doono bangiga qiimihii uu soo siistay iyo hadee beed mahayo faa'iido la isla og yahay markaas ay ku heshiyaan ama ku ballamaan marxaladda noocaas ahkaam bay leedahay ahkaamta waxaynu tilmaamayna insha Allah ta'ala inta muhiimsan qodobka koowaad waa inaan ballanqaadkaasi mulzam ahayn khasab ka ahayn labada dhinacba hadii ballanqaadku mulzam noqdo waxaynu hore u tilmaanay in heshiis isu bedelayo ballanqaadkii oo sidii wax la kala gatay oo kale noqonayo taasina aanay sharci ku banaanin mar haddaan bangigi wali milkiin ama la soo wareegin hantidu gadi lahaa qodobka labaad ee muhiimka ah waxa weeye in macmiilku soo arki karo
hantida uu doonayo in bangigu iibsado dabeedna uu ballan qaaday inuu kala wareego waa soo arki karaa qiimaha waa soo ogaan karaa hadday gaadiid tahay iyo hadday guryo tahay iyo haddii ay wax kala tahayba waana u soo gudbin karaa bangiga bangigu markaasuu bilaabayaa isna inuu badeecadii la dalbaday iyo kuwa la midkaaba suuqa u galo qiimayaashooda soo ogaado meesha markaa ugu jaban ama ugu badeeco wacan ayuu markaa bangigu ka soo iibinaya haddii uu macmiilku diido oo yidhaahdo aniga badeecadan doonaya waa tan keliya oo laga yaabo inay ka qaalisan tahay badeecooyin kale oo la mida ama la nooco oo yaalla magaalada la taya ah bangigu wuxuu xaq u leeyahay inuu ka cudurdaarto ninkaas uu la sii macaamilo waayo waxay tusinaysaa in customerkani sababo gaara u doonayo badeecadan gaarka ah ee ku yotaay ama gurigan gaarka ama gaarigan gaarka oo dhici karta isaga iyo customerka iyo haddii beedma cidda laga iibsanay in heshiis gaara hoose galeen iyo wax la mida marka haddii customerku uu badeecad soo bandhigo bangigu xaq buu leeyahay inuu taa iibsado oo ka iibiyo iyo inuu mid la mida ka qiimo jaban ama ka tayo badan iibsado oo ka iibiyo macmiilka marka haddii macmiilku isku dhajiyo badeeco mucayan bangigu xaq u leeyahay inuu iska dhaafo uu kansalo heshiiska noocaas oo kale isla tallaabada intaynan ka gudbin haddii baydmahayo marka la joogo ballanqaadka hore waxa aynu tilmaamaynaa haddii ay dhacdo in macmiilka iyo cidda wax laga gadanaya ee badeecada haysa ay heshiis hore galeen ama iibka ku heshiiyeen waxbaan kaa iibinaya iyo waa kaa iibsanayaa ama carbuun kala qaateen ama xataa hadal keliya ha ahaado waxba yaan la bixinne heshiis dhaba ay galeen bangigu ma geli karo mucaamalada noocaas oo kale ah waayo waxay u ekaanaysaa in bangigu uu lacag ku bixinayo heshiis hore u dhacay oo dhammaaday oo macmiilka iyo meesha wax laga iibsanaya ay hore uga heshiiyeen markaa beec dhacay inuu lacag keliya bixiyo dabeedna lacag ka badan qorto bay noqonaysaa ma bannaano markaa waxaase bannaan taa beddelkeeda in bangigu ka shaqeeyo in la kansalo heshiiskii hore u dhex maray macmiilka iyo haddii baydmahayo ciddii alaabta laga gadanayay marka heshiiska labada darafba laga kansalo labada dhinacba ay kansalaan markaasaa heshiis hor leh oo bangigu la geli karaa ciddii wax laga soo iibinayay haddii bangigu ogaado aan ku celiyo in macmiilka iyo jihada wax laga soo gadayo ama ha noqoto macrad gaadhi iibiye ama ha noqoto nin gurida oo gurigiisii iibinaya ama ha noqoto raashin bakhaar yaalla hadduu ogaado in macmiilku hore uu la heshiiyey oo heshiis ganacsi wax kala iibsi la galay haddii baydmahayo cidda bangigu ma maalgelin karo laakiin waxaa bannaan inay kansalaan heshiiskii ka dhaxeeyey macmiilka iyo jihada wax laga iibinaya ay heshiis hore kansalaan si la og yahay cad u kansalaan kadibna bangigu marka heshiis cusub uu la galo cidda wax laga soo iibinayo waxaa u bannaan bangiga iyo macmiilka xilligii ballanqaadka haddii ay wax ku heshiiyeen maalan gaadhi in bangigu iibsado dabeedna ka iibiyo macmiilka gaadhiga qiimihiisu 10 kun ahaa maalan waxaa laga faa'iidayaana uu 10% yahay ama boqolkiiba 10 oo 12 laga gadi lahaa macmiilka waxaa bannaan heshiiska noocaas ah marka dambe wax la kala iibsanayo inay wax ka bedelaan oo yidhaahdaan maalan waxaanu ku ballanay wuxuu ahaa 10 kun oo gaariga la soo siiyey iyo haddii beedmahiyo 12 kun aad iga siiso haddii aan macmiilkii ahay marka macmiilku yidhaahdo iga dhin oo 10 kun iyo bar iga sii haddii uu ka aqbalo bangigu heshiiskooda waa la bedeli karaa macnaheedu ballanqaadkii waa la bedeli karaya waxaa kale oo tusaale u noqon karta bangiga gaarigii uu soo gaday kharash ka badan 10 kun baa galay oo haddii beedmahiyo wareejintii iyo wixii la halmaala wuxuu xaq u leeyahay bangigu inuu yidhaahdo gaarigu 10 kun buu ahaa laakiin waxaa raacay kharshiyaad kale oo wareejintii iyo wixii la mida wuxuu tegey 10 kun iyo 200 marka qiimaha aan 10% kaga doonayaa waa 10 kun iyo 200 oo marka macnaheedu yahay waxaan ka doonayaa 12 kun iyo 20 noqonaysa wax noocaas oo kale ah marka in la bedeli karo ballanqaadkii hore intaan beeca dambe dhicin wixii lagu ballamay hadday mar dambe dib u eegaan customerka iyo bangigu oo markii bangigu la soo wareegay badeecada hadday dib u eegaan oo ay u muuqato inay wax ka bedelaan waxay xaq u leeyihiin inay wax ka bedelaan
وحكمنا مرحلة مركز لمريو إن بنجي جوهب صدو إن الحرير كده حينين هذا بعيد ما هيو معميل كيعد على يسوي بسنيو ومركا أنا أهين نيك معميل كيدوني إن قاري الله قدر مثلا نيك معرض كلها أما أنا أهين هذا بعيد ما هيو المهي سوك الإنوليه يوحي لمده أما حاسكيس أنا كقرنين سواء أنت ذا ولا لكن حاسس كقرنتهاي ولا الكل كقرنتهاي والكيس كقرنتهاي يوحي له المال معني علاقة كذا حيسا لهانشو أما معرض كل هوسي ماذا كان بني وين أو نكان معميل كيوليه هدي مركز لو قالوا إن هنتيدا للدنيا إلا بنجو يبصروا لولا شيء معميل كا أصلها ما معميل كلية هي ست توصى يا ست ضبان سيدون طبعا نغطيه بنجي وما بنانا المركزي بدعاء النوع عاصة ويبصروا سي إبيو ومعمل كسيبي واحد غاضي بيع العينة ومعناه عدي لهيد با دبلوج عليه ودبلوج إبي وبقوا مركو يبصروا هذا نحو كيبن يا معميلكي مركز عدي اللي جاي يبصر عدي اللي جاي يبن هذا اسمه من نغطه سعد أما ست ضبان بنجي بيع النوع عاصة ما قال كرو وحنوي بيع العينه يعني صوت الماني حلقات كوراء النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه waxa markaa bangiga laga doonayaa inuu hubsado inaan customer-kani la lahayn xiriir lahaansho badeecada la doonayo in la iibiyo marxaladda xigta waxa weeye in bangigi uu alaabtii tago oo soo iibsado la soo wareegida ayana ahkaam baa ku tacalluqda insha Allah ta'ala idan inta muhiimsan ka tilmaamayna waxa la doonayaa bangigu inuu milkiyo badeecada uu si iibinayo ee muraabaxda ku iibinayo intaanu iibin ka hor si sax ah oo sharci ah inuu milkiyo oo aan ahayn si suuri ah oo macnaheedu yahay warqado misdushi lagu qoro oo bangigu alaabtii aanu tagin oo arkin oo gurgurin oo heshiis ka gelin ay tahay warqado loo keenay intuu saxeexay dabeena lacagtii uu ku bixiyay aan noqon milki dhaba inuu la soo wareego la doonayay waxa la doonayaa sidoo kale gacanta soo gasho hantidu si xaqiiqi ah oo hadee beed ma hayo oo badeecadi ka soo naqliyo ama ka soo wareejiyo meesha ay taalay ama si xukmiya oo ah hantida ka taalo oo kale soo gaadhay oo bangiga ku qoran magaciisa in warqadihii lagu soo shaxniyay ama lagu soo diray oo kale ma manifesto waxa oran jiray inuu hayo oo magaciisa ku qoran hadii marka saasay tahay waxay ka dhigantay inuu milkiilaha soo wareegay hadee dhul tahay oo kale inuu sabar loogadii ama hadee beed maayo milkiyadii dhulka inuu gacanta ku dhigo loona baneeyo dhulkii oo ciidii marka uu ka soo iibsaday ay banayso hadee guri tahay alaabtii ka gurato fariiq ku wareejisay wixii la halmaala waxa la doonayaa isla marxaladda markuu bangigu milkiyayo shayga inaanu wakiilan marnaba customer-ka doonaya in badeecada laga iibiyo waxa la doonayaa hadduu wakiil cid kale uu wakiilan karaa oo bangigu shaqaalihiisana waa dirsan karaa oo matalaya bangiga cid kalena waa wakiilan karaa oo intay alaabta aragto oo qiimayso iibka gasha laakiin customer-kan doonaya ama macaamilkan doonaya in alaabta hadee beed ma hayo loo maalgeliyo ama laga iibiyo ma dirsan karo bangigu waayo waxay u ekaanaysaa in bangiga heshiisku galiya uu yahay mid markaasi muuqaal kaliya ah oo aan dhab ahayn xaqiiqo ahayn mar haddii macaamilku ay ka wadaynaya markaasi alaabta soo iibinaya la soo wareegaya heshiiska ka galiya ee qiimeynaya wixii la halmaada waxa la doonayaa sidaas la eg wasiiqada iyo dokumentiga lagu kala iibinayo beeca hore uu kula soo wareegaya bangigu inuu ku qoran yahay bangiga marnaba lama ogola in lagu qoro magaca macaamilka gaaribu مثلا soo gata bangigu ka siibinayo macaamil muraabax kaga iibinayo waxa la doonayaa gaariga magaca bangiga in lagu qoro oo lagu la soo wareego kadibna iib labaad ama mar labaad milkiyada gaariga la naqliyo la wareejiyo lagu wareejiyo macaamilka waxa markaa reeban in macaamilka si toos ah markiiba lagu qoro magacii badeecadii bangigu la soo wareegay ama ha noqoto mid gudaha taala badeecadaasi ama ha noqoto mid banaanka laga keenayo marnaba lama ogola cidda beeca hore ee bangigu kula soo wareegayo hadee beed ma hayo badeecada cidda lagu qoray inay noqoto cid kale oo aan bangiga ahayn waxa khasaba in bangigu markaasi magaciisa lagu qoro lagu soo wareego
waxa kale oo muhiima oo marxaladaas iyana kamid ahkaamteeda hore aynu u sheegnay ee qabdigu si sax ah u dhaco hadaynu tilmaamayna ujeedada laga leeyahay qabdiguna ay tahay in damaankii bangiga ku soo wareego oo alaabta marka bangigu la soo wareego saacadu la soo wareego laga bilaabo ilaa uu ka guddoonsiinayo macmiilka waxa mas'uuliyadii saaran tahay bangiga haddii alaabtaasi wax noqoto haddii ay baaba'do haddii ay dhibaato soo gaadho waxay ka dhimanaysaa bangiga ee ka dhiman mayso macmiilka waayo macmiilka weli ma ay gaadhin oo laguma wareejin waxa ku jirtaa milkiyadii bangiga marka waxa laga doonayay isagu waxa la wixii alaabta mas'uuliyadeeda inuu qaado oo badbaadadeeda ah oo haday dhibaato alaabtaasi ama ay baaba'do isaga ay ka dhimanayso alaabta ka timaada dibadda oo kale badacooyinka mesela Dubai baa alaabta laba bangiga iyo customer-ka ay ku heshiiyeen in bangigu soo gato kadibna ka iibiyo qofka macmiilka alaabta noocaas marka Dubai laga soo iibiyo la soo saaro doonta ama markabka ay soo gaadho dekada bangigiina uu gacanta ku dhigo warqadihii iyo manifeeskii alaabtaasi lagu soo diray oo magaciisa ku taala wuxuu bangigu xaq u leeyahay inuu ku wareejiyo macmiilkii uu ka iibin lahaa intuu heshiiskii la galo iibka inuu ku wareejiyo documentiga oo aad dekada ka soo kaxayso haduu gaari yahay ama alaabada tahay aduu dekada ka soo qaado waayo mar hadii laga soo naqliyay cidii laga iibiyay oo Dubai ahayd ama xabiis Dubai ahayd ama macrad Dubai ahayd ama dukaan Dubai ku yaala oo intuu badda soo maray oo dhan ku soo maray magaca bangiga oo ku yimid magaca bangiga oo documentiga laga soo saar lahaa dekada oo bangigu gacanta ku hayo magaciisa ku qoran waxay ka dhigan tahay in bangigu milkiyay lana soo wareegay xiyaazadii iyo gacan ku hayntii shaygaasna isagu leeyahay marka qabdiga laga doonay waa ansaxay halka markay marayso bangigu waa la heshiin karaa macmiilka heshiiskii iibka waa la kala qoran karaa kadibna intuu documentiga ku wareejiyo oo dhabarka uga saxeexo tadhiir intuu uu sameeyo dhabarka uga saxeexo oo oran kara aduu kala soo bax dekada barnaamijka cashuurta iyo yaa lagu leeyahay waxay ku xirantahay si kaga heshiiyaan cashuurta dekada waxay ku xirantahay hadba si kaga heshiiyaan hadii bangigu soo saarayo dabcan qiimaha gaariga wuxuu u geeyayaa ama alaabta wuxuu ku darayaa wixii kaga baxay qarashka dekada hadii uu la soo baxay macmiilkuna isaga isu qabo oo markii gaariga dekada ugu tago la wareego la soo bixidaya cashuurida waxa yeelanaya customer-ka ama macmiilkii baa yeelanaya qodob kale inagu aynaan inta badan ku dhaqmin laakiin caalamka laga dhaqmo waa hadii alaabta la geliyo caymis oo mesela alaabta markay Dubai taalay hadii caymis la geliyo oo ilaa ay Soomaaliya ka soo gaadhiso shirkadaha caymiska mesela laga caymiyo alaabtaas waxa kharashka caymiska qabaya bangiga way waxay ku jirtaa milkiyadii bangiga iyo damaankiisi bay ku jirtaa markay soo gaadho dekada ayaa marka lagu wareejinaya macmiilka laakiin inta ka horeysa lama weydiin karo macmiilka alaabta cashuurteeda adigu bixi aan raahdo caymiskeedii adigu bixi lama oran karo waayo ma milkiin alaabtii shaqo kuma u laha wax yaro ka dhaxaysa alaabta ma jiraan oo aan ahayn ballanqaad sameeyay markay iibsanayeen marka cidda lagu leeyahay inay caymiso oo geliso ta'minaadka bixiso waa bangiga ilaa marka ay soo gaadho alaabtii hadee beed mahayo dekada iyadoo oo bed qabta markaas ku wareejinaya bangigu macmiilkii labada marxaladood maraabaxdu ay marto waa in marxaladda hore ballanqaad kaliya noqotaa oo tii hore naga soo hadalay oo marka badeecad uu soo dalbo customer-ku bangiguna uu waafaqo inuu marka soo iibsado la wareego marxaladda hore waxa ay wada galayaan ballanqaad marxaladda dambe iibkuna waa marka bangigu alaabtii la soo wareegay milkiyo buu ka iibinaya macmiilkii marka waxa mamnuuca in marxaladda hore ballanqaadka in aqdi heshiis iib la wada galo ma banaana waxa waajiba in la kala sooco labada marxaladood ta ballanqaadka iyo hadee bedmahayo ta heshiiska lagama dhigi karo ballanqaadkii xitaa marka dambe uu la soo wareego bangigu alaabta lagama dhigi karo in heshiiska hore u dhacay oo dhamaaday oo marka uu la soo wareego bangigu tilqaa'iyan ama automatically alaabtu uma wareegayso macmiilka waxay u baahan tahay heshiis cusub oo laga fariisto oo dib loo wada saxeexo iyo wixii la halmaala marxaladda dambe waxa bangiga u banaan inuu ku daro kharashka badeecada
wixii kharshiyaad galay alaabtan ama badeecadani ay sababtay oo aan ahayn ta bangigu asli ahaan u qabsan lahaa مثلا دي ألعابت الله مثلا بوصاصة أو كلا بقى لقد طلبوا إنه سوء يبصدوا دمنا عيد كيبيو ألعابت أركتيده ده إيو سوء قيمين تده إيو هذا بعد ما يقفك سوء إيجيا خرشيات كيس إيو قارية وكورة إيجيا شدالك وكوب بحنا إيو وحى صورة ووحي بنجو أصلها قبص لها مركا كدر ما يقيمها شغاله سوحي أي سمايين إنه قارية لسوء أركي لسوء قدقرية إيو هذا بعد ما يو ملك الدوان لمرة أو لقى سوء إيجو قواري كتشبان يوحي لمدي وحى صورة بنجي وكدر ما يخرج لكن وكدر كرا مثلا بوصاصو قاري بسوق قاضي وحلا سو صار تريليشن واوي أما ما هي درب البسوق حي العقبة لسي الشدال بالاستعمالي هذا بعد ما يو قاري وال عشوري iyo wixii la halmaala milkiyadiisii waa la soo wareejiyo cid kale lahayd macradkii laga soo wareejiyo wareejintii kharash bay keensatay waxyaabaha noocaas wuxuu ku dalacayaa qiimaha gaariga oo markaa waxa lagu iibinaa gaarigu qiimihi ku kacay oo aan ahayn kaliya qiimihii macradka boosasa uu ku yaalay marka waxaynu niri wixii bangigu qabsan lahaa ee qof kasta oo wax iibsanaya qabsan lahaa lagu dari maayo qiimaha oo ah inuu wax godgoriyo iyo inuu suuqa wareego alaabtii soo baaray iyo wixii la halmaaray laakiin kharshiyaadka cid kale hawl ay qabatay lagu bixinayo oo maalan kuwa aynu tilmaamayna ay kamid yihiin waxa lagu darayaa hadii bayd maayo qiimaha badeecada lagu darayo waxa kamid ah kharshiyaadka aan la xisaabinayo bangigu aan ku dari karin daraasada uu sameeyay isagu maalan qofka khusaysa hawl buu gelinaya qofku buu baaraya bangiga kale la xiriiraya fayl buu sameynaya dokumentiyo daabacaya waxyaabaha noocaasa ee bangigu asaalatan uu qabsan lahaa waxa weeye waa inaanu ku darin hadii bayd maayo lacagta muraabaxada oo wixii bangigu khaasatan gudihiisa uu qabsan lahaa laakiin wixii kharash kale oo alaabta la xiriira oo isaga ka baxsan shaqadiisa uu ku bixiyo oo laga maarmi waayay wuxuu ku darayaa kharashka qiimaha gaarigu uu ku kacay sida iyo waliba wixii faa'iido ka heli lahaa kaga iibinaya maxay macmiilkii waxaa bannaan in lacagta laga faa'iidayo badeecada bangigu ka iibinayo cid kale faa'iidada in loo xisaabiyo qaab percentage waa boqolley saami boqolley waa bannaan tahay oo la yidhaahdo alaabta boqolkiiba 10 baan ka faa'iidayay waxaa kaloo bannaan in laga dhigo mablag maqtuuca gaarigu 10 kun bigu jooga kunna waan ka faa'iidayay marka ama loo magacaabo si boqolley oo xisaabteedu iska fududahay ama loo magacaabo sidii fixed lacag go'an oo 1500 2000 intaas ka faa'iiday noqotay labadu waa banaantii laakiin way isla og yihiin macaamilka iyo bangigu isku waafaqaan marka ballanqaadku u dhacayo waxa bannaan bangigu inuu ku iibiyo alaabta cash ama badeecada in macaamilka ka iibiyo cash waxa kale bannaan inuu deyn ka dhigo oo deyn ku iibiyo oo gaarigii ku wareejiyo macaamilkii qiimihiisu hadduu 10 kun ama 20 kun ahaana muddo sanad iyo 2 sano ama ka yar ama ka badan lagu heshiin macaamil ku bixiyo bishiiba in go'an lacagta guud loo qaybinayo bilaha uu ku bixinayo macaamilku waa bannaan tahay waxaa bannaan in bangigu yidhaahdo haddii aad sanad gudihi ku bixinayso maalan waxaan kaa faa'iidaya boqolkiiba 10 ama 12 haddii aad ku bixinayso 2 sano waxaan kaa faa'iidaya boqolkiiba 20 ama 24 iyo wixii la halmaala culimadu waxay leeyihiin sida badeecada kaashka lagu iibinayo iyo tadeynta lagu iibinayo oo kala qiimo badan yihiin suuqa aalaaba غالبا sidaas la eeg baa labada ajalood oo ah ta dhow iyo ta dheer sanad gudihi baan ku bixinaya 2 sanad gudihi baan ku bixinaya iyana ay u kala duwanaan karaysa laakiin waxa shardiya mar walba in ay isku waafaqaan xilli go'an iyo lacag go'an intaanay kala tagin oo heshiiska marka la galayo isagoo oo la og yahay muddadu ku bixin lahaa iyo qiimuhu ku bixin lahaa marka ay kala tagaan waxa kale oo muhiim ah inaanay marnaba ziyaadin lacagta hadee baid mahayo lagu ballamay alaabta lagu gaday deyn ahaan ku maqan qofka customerka ma ziyaadi karto hadday ziyaado oo yiraahdo waa la daaday kordhi waxay noqonaysaa ribada xaraanta ahayd sharcigu markaas uu xaraan tilmeeyay
waxaa bannaan in bangigu shardiyo oo yidhaahdo maalan haddii macmiilka aad la daahdo lacagta bixinteeda bil kasta waxaa loo qabtay maalan $800 bil buu la daahay 2 bilood buu la daahay waxa uu bangigu sii shardiyi karaa haddii aad ku bixin weydo lacagta deynta ay alaabta laga gaday ku deymatay sida taadaad u bixin weydo jadwalka lagu xadiday lacagihii oo dham oo muddo sanadaad ku bixin lahayd way soo degdegayaan hal marba waxay ka wada doonayeen waa cuqubaadka bannaan ku bannaan haddii qofku meermeeriye uu yahay haddii qofku yahay mucsir awooddu sida ka tahay waxaa waajib lagu yahay bangiga inuu sugo haddii qofkaasi wax meermeerinayo wuxuu bangigu ka afeefan karaa iminkaba haddaad bil iyo laba la daahdo baymentigii ama qistigii iyo qaybtii aad bixin lahayd waxaan samaynayaa deyntii oo dhan oo sanad aad ku bixin ama 2 sano inay markaa aad wada bixisaan kugu qasbaya saasuu kula ballami karaa shardi ku geli karaa haddii uu markaa fulin waayana uu ku qasbi karaya inuu saas ku bixiyo xagga damaanaadka iyo haddii bayd mahayo waxyaabaha bangigu uu ka dhigan karo wehel marka lacagta uu dayminayo qofkan customerka waxaa ka mid ah in uu damiin weydiiyo maalan xilliga ballanqaadka la gelayo 2 damiin ama 1 damiin ama ka badan ama suu doon marka hadba uu ugu shardiyi karo waxa u bannaan inuu rahan iyo culaad ka dhigo ama ha noqoto dahab ama ha noqoto guri milkiyadii sabadloogadii ama wax kale ha noqoto wixii hantiya marka la gado hadhow laga heli karayo deyntii bangigu wuxuu xaq u leeyahay inuu ka rahman karo ama culaad ahaan uga dhigan karo wuxuu bangigu xaq u leeyahay sidaas la eg inuu ka qabto lacag culimada ay ku magacaabeen haamish aljiddiya oo marka haddii bayd mahayo la gelaya ballanka bangigu foof tagayay alaabtii lagu ballamay uu soo gadayo u shaqo tagayo waxaa suuragal ah in customerka ama macmiilka uu ka dalbo lacag مبلغ معين oo account lagu shubo gaara oo magaca qofka macmiilka lagu qoro oo bangigu aanu isticmaalaynin laakiin loo hayo ihtiyaad ahaan sif ahaan loo hayo oo macnaheedu yahay bangiga alaabtu uu soo gadaya kadibna wuxuu la hadlayaa macmiilkii wuxuu oranayaa alaabtii waan soo gaday kala iibso waxa dhici karta macmiilkiina waan ka walaacay ama hawshii waxaan ila noqotay inaan markan gadan karin bangigu alaabtii suuq ka iibinay cid kale ka iibinayay haddii khasaare ku yimaado oo shayga isbixin waayo khasaaraha dhacay waxaa sababay macmiilkan ka baxay ballankii marka wuxuu bangigu xaq u leeyahay lacagtii laga hayay inuu ka goosto qadarkii gaabka ahaa ee lacagta galay ama khasaarihii lafihii iyo qiimihii badeecadu ku kacday intii ka dhimantay oo khasaare ah wuxuu xaq u leeyahay bangigu inuu ka goosto lacagtan hore uga hayay haddii bayd mahayo ninka macmiilka ah ma bannaano sidaan hore u tilmaanay in bangigu uu haddii idmahayo uu ku dallaco lacagta haddii uu la daaho macmiilku lacagta inuu ku dallaco oo yidhaahdo waxbaa kugu ziyaadaya markaad sii daahda ma bannaano arribo ma bannaano sidoo kale hore u tilmaanay waxa la jadwalata diyuun ama haddii idmahayo in la yidhaahdo muddo dambana waa lagu siinaya oo ka badan tii hore lacagtiina waa sii jajabinayaayo muddadaa dheer baa la leekaysiinaya ma bannaana oo waxbaa kugu kordhaya iyo wixii la halmaala in la yidhaahdaa ma ay bannaano wey waxay culimmadu leeyihiin haddii ay maxkamad iyo dacwad iyo hawshu gasho iyo xafiisyadan dadka qaantooda dabagala waxaa jira xafiisyo caalamiyahoo qofka horta deyn baa ku leeyahay adigu ii dabagal oo tagayo oo nafta isugu keenayo oo dacweynayo oo haddii beed mahayo qarshiyaadka noocaas ee dabagalka qofkan wax meermeeriyey ee lacagtii in hore isaga bixiyo diiday isagoo awood u leh lacagaha noocaas ee kharashada ay qaataan dadka noocaas ee dabagelaya ninkan dacwada fulinaya ama hataa qarshiyaadka dacwada gale ee maxkamaddu ay qaadato waxaa lagu dalici karaa ama lagu xukumi karaya qofka macmiilka ah ee wax meermeeriyey aan ahayn ka mucsirka ah ee wax la'aanta markaasi wuxuu bixin waayey
إن شاء الله تعالى إنها صينو كجود بينا أحكامتي تفاصيل هاي خصيصي مراحشة مثل بيك أي مريسو مرابحضو وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إله سبحانه وتعالى كوال مريو فضيلة الدكتور أحمد جامع إسماعيل مري كلمة دي ساقيم كا runtii maaragtay inuu ku faahfaahiyay markaynu muraabaxada sameynayno oo bangiyadu inoo sameynayaan iyo waxyaala ka iman kara runtii waxaynu maalin walba la kulanno weeye qof kasta oo bangi la tacaamulina arrimaha noocan oo kale ah wuu arkay su'aali baan galaynaa wixii su'aalo ah waxaad ku soo dirsan kartaan telefoonka 7 eber 7 eber 6 362 7 eber 6 362 su-aasha koowaad doctore saail baa wuxuu leeyahay haddii macmiilku bangiga ku dhahay haddii macmiilka bangigu waqtigu kula ballamay ka hor waqtigu macmiilku kula ballamay bangiga haddii ay la dhaafto ku bixin lahaa مثلا hal sano kale ayuu ama 2 sano ayaa lagu la ballamay inuu macmiilku ku bixiyo ka bacdi waa la dhaaftay marka bangigu heshiis cusub ma la geli karaa isagoo siyaadinaya profetkii hore ku siyaadinaya mid intii ka badan yani heshiis cusub ma la geli karaa oo leh contractigiisa cusub iyo siyaadadiisa cusub ma la geli karaa بسم الله الرحمن الرحيم waxaan filayaa qodob ku dambeeyaan ka hadlay ma banaana waaribo taqdi am tarbi miyaad gudi lacagtii mise siyaadad ku darayo dib baan kugu dhigaa waqtiga waaribo sariixa waa tii jaahiliyada tii quraanku diiday ma banaana wallahu a'lam jazakallahu khayr al-jazaa سائل كلا يا وحليه هاي هدي معميلكو بحين وايو لعقتي الغلاب باللمي جناح ملساري كرا هدي لساري كورونا جناح يا لسينيا بسم الله الرحمن الرحيم معميل كلمة جناحي كرا وحوح جناحه والدولة ده وتعزير كمالجة waxaa sameeya dawladaha sameeya imaamka madaxweynaha iyo hay'adaha dawliga ah ganaaxa iyo tacsiirta maaliga sameyn kara laakiin bangiga iyo hay'adahan dhaqaale iyo ganacsi xuma ganaaxi karaan hadii marka qofka deynta uu la daahay lagu ganaaxo lacag laga qaado ganaaxa waxay noqonaysaa ziyaado deyntii ka badan laga qaaday mana banaana waa ribo waxaa jira culimada qaarkood yiri hal ganaaxo ganaaxa lagu bixiyo meelaha sadaqooyinku ku baxdo sida masaajida iyo hadee been maayo agoon iyo kada laakiin arinkaasi qawaacida sharciga ma waafaqsana waayo ma noqon karo xoolo xalaal ah oo sadaqa galaya waa xoolo laga qaaday qof khasab iyo ikraah isagoo markaa ma sadaqadaysan cidda ka qaadaysana حقوق ملها إذا صدقوا نقول ميسو مركا سيدا صحدي وحاوين أن قفك جناح لو حكومي كريم لكن هدي بنجي جود دعوة محكمة ده ومحكمة دو أي هبسطه إن دينتي وكلام مغنى قفك يمرمرين تيسي يوحي الله المال وخسارة كسو جاري بنجيجا خسارة وحا حكومة يقاضية يا محكمة ده كاسا مركا مقدول وقديجا يا هذا بين ما هيو بنجيجا لكن إن مركزي هذا بين ما هيو جناح بنجي ويسكت صار قفكا أما وحكا ليرا وحين نقولها كقاطو ما بنانا والله أعلم. جزاك الله خير الجزاء. سائل كلا يا وحلية هاي هدي معميلكو كبحيو دينتي لقولها مددي لوقبت إن كيردو كبحيو تصالان لبصنا يا لوقبت مركز وحو كبحيي هل سنة يبر ديسكونتي ملوسا من كرا
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maleeyahay xalqadii hore inaan kaga jawaabay su'aashan oo kale haddii macmiilku muddadii uu lacagtii ka soo hormariyo waa xaq bangigu uu leeyahay inuu ka tanaasulo ama ka dhaafo lacagtii faa'iidada ahayd qayb ka mid ah laakiin culimadu waxay leeyihiin waa inaan shardi lagu sii gelin haddii shardi lagu sii galo ma bannaana laakiin haddii aan shardi hore lagu sii gelin oo macmiilka lacagtii soo dedejiyo muddadii deynta loo qabtay ka soo dedejiyo oo bangigu u arko inuu ka dhaafo faa'iidadii qayb ka mid ah oo haddii maalan ay ahayd 12% ama 12% oo bangigu ka dhigay 6 ama 8 ama 9 ama 10 ama wixii la mid ah shardi horena aanu jirin waa bannaantay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam جزاك الله خير الجزاء سائل كلا يا وحليه هاي قف هدي وبنجي كدل بدو لعق عدانا يسي وده بنجي إسلامي وياهاي وده أنا قال لعق عدانا كم سين كردين ودل صار له ما كله كلا بنجي تا وحنكوها يا حل وأهينا بقاش مراشين أسو بايعته عن قطعة عن كو إيبيو بقاش كراشين كاس أذكرنا عاد بقاش كراشين كعاد إبسطه أو قرطاس لعقتي عدان كأوبا هنيد أساكو هشيت. بسم الله الرحمن الرحيم وحان سلايا هاي جدا نوع عاصيه شبه كينيسا إن بنجيجو لعقنا وبحيي لعقنا ليرادنا وقرنيه وأوراك رب بنجيجو أنه كاش ما بحنه أما بندي قرض حسن كاه هذا بعد ما هيو قفنا ما هلسيو بلا فائدة هذا بندي قاسنا مفرنا لكن بدي عين بعد نقدنا دي مركان نجا قالوا سبضيعات راشين قاري أما باهي أدو قبته جودي اللي جو يبي أما قاري اللي جو يبي أكو يبين أنت وأوران كلا لكن خد كان اسكو حرنا إلا ويبين سايو كاشي كلا صبحه واحد مده جدا نوع عاصيه إني حوتشين السوق شبهده علماء قاري كذا واتشين ويلاهدين مرابحة وحى كده موضعين بنجو علابتن وسندون إنين وكوجا ضربك قفك معملك إنه يبي يجهد وكيبين لها يفيد وكيل له وحولنا أيهين مضمون أيهين أما الله بلان قاضي شو هذا سمرك حوتشين سمرك وحن لا يهاي بنجو وأورنكرا أنه بديع عنه يبينا أما هذا باهي أن كاش هاي قبته قاري أو كله هذا بعد ما يقولي أو كله وأنتوا يبسنا وكايبين كرنا لكن تلمامد إلا حد كاسو قارن كايبينية تبعنا إيبي كاش سيدا كهل وحان سلايا هاي أرن كاسي وحوشينيا إلا ديدو عملنا نوع عاصس العلماء قار أي مرين مركب وحان سلايا مبنانا والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير الجزاء دكتورة سائلك لا يوحليه هاي قف دلال أما وكيل بنجو ما سميسن كرا حدو سميستنا خرشات كاب وحدول صار يا عد وحسو إبنيو سبنجو سجا بحنا العكتس. بسم الله الرحمن الرحيم أنا بيك قارب على جيا إني دلال بهذا وأما دلال كيس كلا صعدابة أو عرفي قلت المام يا إنان أنت بدن توصلوا كلا جدن دلال وحكي لجويان هدي عرفيقو يهي إن دلال بدي عادة ويبيو وعدي قدان سبا ودلال مرسو انت بدن دلال كنا وقاتو خرش وحاوي بنجيقو خرش كي دلالك وحصارة يا بدي عادة لكن أرن سهلا با وبنجيقو آن باهبا وقبين دلال وسوي انتو توسطو مثلا راشيك بخار كبوحا دلال مباهنا شغالها بنجيجا أنتو تجي يورد قيمها تساوى مع حراشين كان سكرت بريسك يوحي الله مذا وقيمها قد قرينا ينقدين وحي أي كل شيء أنا كقرني لكن وحلاقي يبردل كأكلي هوتيل اللي يبي قدي وحادع كتعالى بين دلال يوحي شان هذه مركب بدأ عدو أي تاي بدأ عد دلال كان لو جمع المواي وعرفي وخاص بيو وحوي دلال خرج يسوح فوليا عرفت هذه أي تاهي wax bangigu fushan karo sawan cidna u marin oo marka uu dilaal isagu isticmaalo dilaalka kharashkiisa isaga isu qaba bangigu waayo wax loo baahna ma ahayn badeecadana waxa la doonayaa kharashka laga maarmi waayo kaliya in la saare in qofka kharash laga buuxiyo oo wax kasta inta
la bahalkiyo isaga la saaro lama ogola marka waxaan leeyahay waxay ku xidhan tahay curfiga haddii alaabtaas ay tahay alaab dilaal ka maarmi weyday oo bangigu usan keligii isagu si fudud u iibsan karin inuu dilaal bara mooyaan dilaalkaasna uu yahay mid kharash qaadanaya kharashkaasi wuxuu fuulayaa badeecada haddaan dilaal loo baahanayna bangigu wixiisa fushan karana waxa weeye la saari maayo badeecadaas kharash dilaal wallahu subxaanahu wa tacaala aclam جزاك الله خير الجزاء وسودك شيغايي سؤالو waxay u badan yihiin in maaragtay macmiilku uu lacag cadaan ah rabo mar walba sidoo marka uu lacag cadaan ku helaana uu luuqyo badan uu soo marayo mar bakharka la heshiyo mar uu raashin uu san u baahnayn uu gadanayo su'aalo aad u fara badan oo arrimaha la halmala ayaa maaragtay dhageystayaashu ii soo direen saan inii sheegay barnaamijkani waa barnaamij أسبوع داف مساعد كوجبة دكتور كإنه يماده إلى سبحانه وتعالى كاب المريو رانتي وحبلان بينه إفتيمي وأنا وحنا أبا هاي أو كل جين إنه مارت نلوشنا تابنا يسا وحيل دقالة إسلام كوساب سن مركا إن شاء الله وحي سؤاله وانسي ديارنا يا وانسي قرية تلفون كان يجوز وجود بيا توضوا إبر ليه صدقت ولحنا لبو إن شاء الله درب يدمو خميسنا صوص عتمة تنكله أيها الدكتور كونو من دونا دكتور أحمد جامع إسماعيل ميري برامج كنا تي في كنا ضوبيا وكلسن تي في خميس والباء وصوق جلا أسبوعا والوسوع العليا يوتيوب كنا هدات كقرطان الفتاوى ذا أمل أمر قراء إسلام كم ودمان حلقات كيبات كهليسان دكتور كونوجيدي دكتور كوالا تليه دنك شريعة البنك أمل وحلينا الله سبحانه وتعالى كابل مريو وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته